بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولاشين آمن لك وفشيال واندين السلامي سلام كدب هدي إلهي رهدو حربنا كيرا هالله لبعتذا لقو هيو حمدك القعل حمدك القعل دقال بيق الشي انترنت كاميلو بلغة سوقليي آدي آد بالله وضا قبرنا مسكينة ده qofka bini aadmiga waxa la yiri hore waxa loo yiri dheriga maxaa ka keena kuleelka ka keena xamdi kalgacal qabiilka ay ka dhalatay wad ogtiin dhibaatada loo geystay Soomaaliya qofkuna hadduu ciilka qabo waxa wanaagsan hadda gaalado kale ajnabiga kale waxay sameeyaan qofka markuu ciil iyo murugo qabo waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo counselor oo qofka la taliya oo wax u sheega oo uu aqli celiye ayay yeeshaan maadaama Emilia soo gashay gabadha waxay counselor ka dhigatay inay ku ciil baxdo ay ka dhigatay tabar ka dhigatay aydii aydin caayaysay in ka badan iyo sanado ka badan ba qabiilka ay ka dhalatay aad ku caayayseen Soomaaliyeed dulmi aad u fara badan baad ku samayseen ummadan walaalaheena Soomaaliyeed dulmiga aad ku samayseen hadda inta yar ay idin muxuu ahaa idin ku ciil baxayso wad u dul qaadan weydeen malihi xumaanta aanu ku taageerno laakiin qofka waxa dhibaatada ka keenaya ee caydan ku kalifaya ee ciilkan ku kalifaya waa ina fahantaan una dul qaadataan ila dhaxad idinku bacaayayeen waqti qabiilada kale Soomaaliyeed baan sheegaya dhaxad caayayeen ma dhibaan dhaxad caayayeen tumaal dhaxad muxuu ahaa caayayeen qabiilada kale ee aad tiraahdaan waa naga yar yihiin anu citriisay ma aqaan qabiilada Soomaaliyeed qoladana yar iyo qoladana badan waxay tirakoob idinku sameeyay Soomaaliya oo dhan baan tirakoob lahayn Soomaaliya oo dhan ayaan la aqoonin xaqiiqda inta qof inta ay yihiin inta milyan ay yihiin lama yaqaano marka meelaad lagaga batay ma aqaan anu kule aqoon malihi waxyaabo aad u dhibaato badan ayay ummadda Soomaaliyeed sameynayaan waxana badanaa idin sameeyay arrimahaas oo kale oo idin jidmariyay oo idin yiri ku dhaqma waa madaxda Soomaaliyeed xamdi kalgacal kuma taageerayeen aflagaadi iyo cay badan samayso laakiin in loo dul qaato waa muhiim in maanta aad wadaan miiriyaha aad wadaan maanta dhan marba ka sheekaysaana kullu Soomaali baa tiin waxba ma joojinaysaan laakiin waxaan idin cadeynayaa xamdi kalgacal حمدي كالقعل عيل بي قبطاه عيل بي قبطاه حمدي كالقعل لون باهنيها إناد Soomaaliya u dul qaadataan dhibaato aad u fara badan bay soo martay ayda ay tamaysa tabar bay ka dhiganaysaa una malayn maayo dagaalka ay gashay in laga badiyay ha soo qabsanina inta yar ee gabadha kala dagaalamayso labadoodaba marba mid baa laga raayay iyadana marbay wax dishay oo sida faraska u qabsatay ayadana marba madax laga garaacay labadoodaba dagaalka midiba marbay raaysa laakiin dagaal waa u doqonnimo gabdhaha Soomaaliyeed maanta inay jidka isku qabsadaan isku dilaan sidoodaba u doqonnimo waxa doqonnimo oo kala ah oo khalad ay ku gashay weyn xamdi kalgacal waa inay mindi qaadatay xamdi ay mindida hadii lagu qabto lagu dacweeyo khatar baad ku sugantaa Allah ku badbaadiyo awlaadii reer baad leedahay xamdi inaad fikirtaa loo baahan yahay qabiilada aad sheegayso iyo irirka aad sheegayso iyo qabiilada aad muxuu ahaa u malaynayso inay ku tarayaan
maalintii xabsiga lagu geliyo waxba kuma tarayaan xamdiye waxba kuma qabanayaan meeshaasay kaaga dhaqaaqayaan waan ogahay ciil waad qabtaa oo Soomaaliya waan ognahay qabiilada sida loola dhaqmo jiro waan ognahay ciidan ogeyn ma jirto laakiin ciilkaad qabtay waxaad ogaataa inaad qurbo joogtid waxaad ogaataa mindi iyo arrimaha hadii lagu qabtay khatar weyn inaad gelaysid waan ka xumahay inay Soomaalidu ku fahmi waayaan kaliya inaad maanta kala dagaalanto adiguna af xuma khaatiyaan lagaaga taagay xamdiye marka runta la sheego ayadu waxba kuma soo kordhiso waxaan dambi ahayn kuma soo kordhinayso mindi iyaad qaadatana waxaan dhibaato ahayn kuma soo kordhinayso qurbaa joogtaan dumarka badan ee leh Malta waa Italy ma yirir baa yeelan doona ma daarood baa yeelan doona waa hadalkii lagu faanayo waxayna ogeen labadooda midna inaan lahayn dalkana dal uu dad Talyaaniga leeyahay inay marti ku yihiin bayna ogeen marti baad ku tihiin dalkan waad baryootanteen in la idinku soo dhaweeyo waa la idinku soo dhaweeyo aqligiina wuxuu keenay inaad jidka isku qabsataan ciyaal yar ay kaamiradiina ku ciyaaraan markaas dilayseen ciyaal yar baa kaamirada ku ciyaarayeen waxaan aaminsanahay meeshaad ku ciyaaraysaan waa xadiiqada caruurta ama baarkaha meesha caruurta la geeyo ee caruurta yarka lagu ciyaarsiiyo ciyaal yar fara badan baa idii ag taagnaa waxaan aaminsanahay gaariga yaraa ilmaha lagu riixay inuu idii ag taagnaa laga yaabay ilmihii yaraa ee ay dhashay xamdi inay tahay ee wadatay ama ta kaleba wadatay waa laga yaabaa ilmaha yarka khatar baad geliseen waa haddii adinku aad dhasheen anu ma garanay ila meesha ma taagnayn laakiin dad idinka wadateen bay u ekaayeen caruurta khatarta aad gelinaysaan awlaadiina iyo naftiina aad gelinaysaan iyo dambiyada aad isku furaysaan haddii qabiil wax lagu kala qaadayo Soomaaliya la isku soo dilay cidna cid kama xoog badanin ummad Soomaaliyeed oo meel marti ku abaatihiin inay isdishaan maalin walba ceeb ba idin tahay oo halka la idin arko idinku dhabarkiini iyo jirkiini iyo wax walba ma aragtay marba gaalku idinka kala celinaya ceeb ba idin tahay ummadda Soomaaliyeed waxay doo dhihi lahaa siiba daarood waan ogahay waa caaytantay in badan bay caaytamaysay xamdi qabiilada kala aad sa uma caydo daaroodkii aad u caydaa waan ogahay garan maayo meesha ay kala qaaday ma fahansani laakiin waxaan idin leeyahay waa qof ciil qabta qofka markuu ciil qabana ilaa xadkaas idinka laftirkiina in u gaartaan ma aha waa inaad ka roonaataan xamdi faamilkeeda iyo qabiilka ay ka dhalatay ciil badan baa la badan waxyaabahan fahmi waaye waxaa ka mid ah oo runtii dulmiga Soomaaliya wali ku sii jira waxa la yiraahdo 4.5 xitaa waa la quuri waa 5 in la yiraahdo 5 Soomaaliyan maqli jira 5 in la yiraahdo xitaa waa la quuri waaye 0.5 ka meesha laga keenay ma aqaan ilaa hadda wax ii turjuma ayaan raadinaya 4.5 waxay tahay ma aqaan 4.5 waxay tahay laga yaabee de kulli saddex qabiil baa tiraadaan qabiilada ugu waaweyn daarood iyo hawiye isaaq baa tiraadaan waa man garta daarood iyo hadaabad saa tiraadeen laakiin 1.5 ka kale cidda ay tahay ma aqaan taas waan garan waay waxaasna madaxdii dhameed ee dalka loo dhiibay baa idin samaysay inay 4.5 idinka dhaadhiciso idinkuna aamintaan dad walaalihiina in idinka hooseeyaan balse waxa kaliya ay Soomaalidu ayna wali fahansaneen ummadii Soomaaliyeed ee qabiil kastaba lahaa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala simay ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku midka ka dhigay in maanta inta lagu kala qaybiyo 4.5 la aamino aad aamintaan oo dadka aad ciil ku badaan oo haddii la idin jawaabo xamdi waxa weeyaan waa gabadha ma dhibaan ka soo dhaxbaxday horta xamdi ha ay badnaato waxa aflagaada badnaato oo waxaan dhihi karaa ciilka aan sheegay ayaa ka keenay laakiin anigu waxaan aaminsanahay naag aad iyo aad u caqli badan inay tahay anigu
la qabiil ma ihi qabiilada kale Soomaaliyeed baan ka mid ahay balse marka aan fiiriyo qofka dhaqankiisa sida ay u hadlayso say tahay cayda kuma taageerayo laakiin waxaan aaminsanayaa xamdi kalgacal inay codkar tahay geesiyadna tahay baan aaminsanahay xamdi kalgacal dagaalka hadda loogama raynin dagaalka marba mid baa la legday marba mid ayaa dhulka la dhigta waan arkaynay cajaladaha qofba intuu rabo inuu ka soo qabsado maaha inaad ka daysaan baa wanaagsan dadkan gabdhahan dumarka umulaha xamdi waa umul bardhaweyte umushay ta kale laga yaabay umusha caruurta yararka meesha taagna in iyaga dhaleen baa dhici karta dumar Soomaaliyeed baa tihiin inaad iska qabataan xumaanta ayaa wanaagsan inaad isku xushotaan baa wanaagsan waliba waxaan arkay xamdi oo dumar kale ay la socdaan oo ay leeyihiin maalta ama irir baa ama daarood doqonnimo idin tahay maalta cidna ma laha Soomaalina ma laha cid la waa la yaqaanaa laakiin doqonnimo idin tahay meel marti ku tihiin inaad ku kibirtaan oo isku sii dishaan oo qabiilka Soomaaliya uga soo qaxdeen aad halkan ku haysaan doqonnimo idin tahay wallahi billahi tallah aad wax looga xumaado weeyaan dabka aad shidayso xamdi adiguna iska daa aad aftahan ahaatid aad muxuu ahaa ma dhibaan u dagaalanti maanta ma dhibaan haddii xabsi lagu dhigo oo mindidaas lagugu qabto waxa kuu tarimayaan xamdiye cadaa caruurtaada lagaa xareeyo lagaa xira inaad fikirtaa ku wanaagsan caqli la timaadid iska daaban ku oran lahaa haddii ilaah yiraahdo kana soo noqo waliba adoo maxkamad sii tagaya oo dacwad macnaha adoo dacwad sii tagaya ayaan arkay oo le haddaan gelaynaa meesha waan dacwoonaynaa laakiin doqonnimay ku tahay daa dacwootid laana waxa weeyaan qofka mindida haysta waa adiga gaalkuna hadduu mindi qofka haysta u dhamaatay dumarka kale ee la dagaalamayna ilaahay xaq ilaahay dartiis xamdi uga hara hana dacweynina awlaada yararka ah ay xamdi dhashay masaakiinta ah ee mid hadda ay ku umusha tahay yaan laga xirin hooyadood ilaahay ka baqa bini aadmigu way isdilaan dad way isdilaan waana heshiiyo gabdho Soomaaliyeed baa tihiin gabdho muslimiin ah tihiin idinka qurba isla jooga heshiiyo ilaahay ka baqa aakhiradiina xasuusta insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh